Assalaamu calaykum. Afar qodob oo kaa caawinaya inaad naftaada horumariso. 1. Ugu horeyn ma leedahay hadaf? Waa maxay hadafka aad nolosha ka leedahay? Suuragal ma tahay inaad u safarto magaalo aadan garanaynin magaceeda, dhanka ay kaa xigto iyo weliba masaafada ay ku jirto adigoo aan ruux kale isku halaynayn? Dabcan jawaabtu way iska caddahay. Suuragalna ma noqon karto in aad tagto meel aad rabto inaad u safarto adigoo aanan ka helin xog ku saabsan sida magaceeda oo kale. Safar kooban oo saacado ama daqiiqado uu qaadanayo haddii uusan suuragal ahayn, qorshe la'aan maxaad u malaynaysaa safarka nolosha oo idil? Waa sidaas oo kale. Noloshu waa safar u baahan qorsheyn in loo sameeyo yool aad hiigsato oo aad xaqiijiso. Lambar 2. Qorshe aad dejisatay. Dadka nolosha ku guuleystay waa dadka leh yool ay hiigsadaan isla markaana u dejiyaan naftooda qorshe oo ah jaranjaradii ay ku fuuli lahaayeen hiigsigooda. Yoolka ugu weyn uu hiigsanayo qofka muslimka ah waa janno iyo inuu Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee u daris kula noqdo jannada. Haddaba qof walba si uu u gaaro yoolkaas waxaa lama huraan ah inuu maro wadadii uu jeexay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Walaalkayga qaaliga ahow, yaynan jirin wax kaa mashquuliya fulitaanka waajibaadka diiniga ah. Waxaa jiro sidoo kale qof walba in uu leeyahay hadaf iyo yool kale uu hiigsanayo isla markaana ka dimacsan yahay noloshiisa inta adduunka dul joogo, balse dadka badankooda hamigooda waxa ay ku kaydsadaan uurkooda iyagoo aanan sameynin wax isku day ah. Markii uu ruuxa sidaa noqdana, hamigiisa oo idil wuxuu isku bedelaa hawo iyo khayaali oo aan soo dhaafin uurkiisa. Isweydii, maxaa ka dimacsan tahay noloshaada dhow iyo tan fog? Lambar 3. Kalsoonida. Ugu horeyn, waa maxay kalsoonidu? Inaad naftaada ku kalsoonaato ma aha wax lagu micnayn karo inaad isla weyntahay ama aad isla qabweyn tahay. Inaad isku kalsoon tahay waa muujinta isku dhiiranaanta, soo bandhigidda fikradaha maankaaga ku kaydsan, adiga oo huba arrimaha aad ka hadal isleedahay asal ahaantooda iyo guud ahaantoodaba. Kalsoonida nafta waxay kugu dhiirigelinaysaa in aad soo bandhigto fikirkaaga, aad gelin karto talo wadaagga, kolka ay noqotana aad taladii tii saxda ah ee wadarta guud ay isku raacaan in aadan ka biyo diidin. Lambar 4. Run nafta u sheeg. Waa inuu qofka runta isku sheegaa oo ka baxa khayaaliga uu tusayo nafta. Run u sheega iyo ujeedooyinka aad u nooshahay iyo waxqabadkiisa nolol maalmeed si dareen fiican aad ugu lahaatid isbeddelka habdhaqanka noloshaada iyo samayntooda. Nafta bar sida loo dhaho haa ama maya wixii aadan niyad ama waqti u hayn, kanana dhici oo hays oo dhan. Dadku waxay kugu nicin taasi waa haa ama maya. Waxa dadka ayay tusaysaa in dadku ku fahmaan oo la oran karo qof oran kara ereyga haa ama maya. muuqaalkeen intaas ayuu ku egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.